waxaan kaaga soo warmi doonaa warbixin aan ugu magac daray tijaabo guuleysatay 10 sano ka hor fikirka dhalinyarada sida uu ahaa maanta waa uu ka wanaagsan yahay waxa ay dhalinyaradu sameynayaan ictiraaqa wax aan horey loo arkin وهل أبور جولستي أو إمانة مريه سقيب كم إذا قرنا يسوع وحيكسو جودتي عقبة واوين إذا يفتين كأودارتي قف كسته أو لها ركتيفو شقدا من حيقول على شيء يعني وعرض يا مجاعد أب وحاول نستيحو جدي عبدي وأنا أساسا حرمت الرك لجوميرو إن الكالودر السانتا وحنقولين ويدي وحقول لي إن يبلغ هاوشن شقدا من حيقول على شيء يعني وعرض يا وحنك جامعة دلكويا لكميد يعني سؤال جاعد سومالي يونسا waxay ugu dhalatay anigoo semester 3 in aan fikradan abuuri karo kana shaqeysi kara waxaan shaqadii hirgashay anigoo last semester marka waan ku faraxsanahay in fikrad cusub la imaado dalka Soomaaliya nasteexo ayaa tilmaamtay shaqadan ay u furi doonto wadiiqooyin kale maadaama wax walba ay budiga u yihiin in la hirgeliyo waatan iyadoo markale sharaxaysa waxyaabaha ay qabato shaqadan waa dry cleaning waxaan sameynaa dharka waxaan sameynaa suudadka dharka caadiga waxaan ku sameynaa sida ay dry cleaning kale uu ku yaala wadanka laakiin sida ay u sameeyaan si ka duwan u sameynaa taas oo qofkii in aan xaafadeeda ugu tagno goobteeda ganacsiga oo kala ugu tagno aan ka soo qaadno dharka waxaan kaloo sameynaa free delivery qofka wax oo free oo laga qaadayo ma jiro oo free oo yahay intaas ku soo kordhinay iyadoo inta badan magaalada aysan ku yareen xarumaha shaqadan qabta ayaan weydiiyay waxa ay kaga duwan tahay waxay uga duwan tahay qofka hayga iyo qofka lowga inay same u tahay intoodaba keensan karaan baahida ay dharka ay u qabaan in loo habeeyo loo sameeyo feerado kale suudadka kale in la buufiyo dry cleaning lagu sameeyo dharka caadiga sidoo kale ay kan dry cleaning lagu sameeyo asigoo hadina qofka suuqa ka soo gaday amal oo sijilan in loo geynayo qofka goobta walba oo ku sugan yahay marka loo eego wadamada barwaaqo sooranka waxaa jira halbeegyo loo fiiriyo fursadaha shaqada iyo hal-abuurka shakhsiyadeed waxaana qofka taasi u sahlaysaa inuu soo bandhigo hibada hal-abuur ee uu leeyahay sax waa horta ahaan aadan ugu faraxsanahay inaan goob ganacsi abuurto anigoo qof dhalinyaro wadankana meel aan uga bixin aan ku soo koray dadka markay i weydiiyaan waxaan dhahaa qof walba ayada ragnimadeeda iyo wax soo saarkeeda ay ku xiran tahay anigoo dumar arday oo ku faraxsanahay in aan wadanka wax ku soo kordhiyo aan la imaado fikrad cusub haddaba hamiga nasteexo geedi kuma eka halkan waxaana mustaqbalka ay ku rajo weyn tahay inay ballaariso xarunteeda oo ay geyso taaka kasta oo ka mid ah dhulka Soomaalida aragtida dhow aan leeyahay waxay tahay inaan ganacsatada wadanka aan ka mid noqdo goobtayda shaqadani aan ballaariyo laamo badan u sameeyo goboladoo kale in aan geeyo Hargeysa kale in aan geeyo marka fikrad aad u dheer aan leeyahay mustaqbal ifaayo aad u qurux badan aan leeyahay ubaxa dalka oo ah dhalinyarada Soomaalida ayay la wadaagaysaa dardaaran ku aadan in qof walba maankiisa uu maalo si uu la yimaadaan hal-abuur ganacsi oo guuleystay dardaaranka aan u soo jeedinayo waxay tahay bulshada Soomaaliyeed in wadanka shaqo taalo only oo rabo bis in qofka maskaxdeeda ay ka shaqeysiiso fikrad cusubna ay la imaato mar walba fikrad cusub la imaato waxaad helaysaa bulsho fara badan oo ku dhiirigeliyo dadkeena Soomaaliyeed waxa u badannahay inaan dadka garab istaagno ama aan dhiirigelino ama aan wax qabad u sameeyno marka waxa leeyahay dhalinyarada wadanka shaqo taalay shaqada kala soo baxo wadanka si walba kala soo bixi kartid guushu waxay ka soo bilaabataa meel hoose iyadoo hadba dabaqad ku gudbinaysa sheekada warbixintan ayaan ka baran doonaa in qof walba uu ka dhabeyn karo wax maankiisa ka guuxaya Cabdullaahi Gacmo, Soomaali TV, caasimadda Soomaaliya.